السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد دمانتين ميلاد joogtaan boo idin salaamaya allah idin salaamay yeelo walaalahayga dhammaantiin oo Khaalid oo maanta mashqalkii joogta dhammaantiin waa idin salaamaya allah idin salaamay yeelo iyo magaalada Soomaali Maxamed inta ku abtirsata ilaahay idin badbaadiyo maalintaas talaadada ah oo bishii xajka ku xigtay ay maanta 30 tahay oo biri xajkii 10kii xajka ay bilaabanayso dhammaantiin walaalayaal meelaad joogtaan boo idin salaamaya ilaahay idinku salaameeyo waa idin soo duceynaynaa adinkuna noo soo duceeyay ilaahay idankiisa aynu khayrka ka wada shaqeyno ilaahay idankiisa biidmillaah ilaahayna ku xafido meelan joognaba miyi magaalo balad iyo baadiyaba allahayna ku xafido waa Khaalid waa YouTube Khaalid walaalayaal dhammaantiin Allah waxaan idinkaga baryaa caafimaad caafimaad iyo nabadgelyo taama dhammaanteen ba ilaahay idankiisa ilaahay noo dambi dhaafo dambigeena dambi waartkeen ba Allah dhaafo ilaahay idankiisa asbuucan waxa laga yaabaa inaan waxba soo duumin hadda waa 10kii soomka ahaa dhammaantiin ilaahay noo dambi dhaafo hana in cafiyo caafimaad insha Allah maanta waxaan rabaa mowduucayga inaan ka hadlo waad aragteen wadankeeni ilaahay subxaanahu wa ta'aala hada awalba Khaalid wadani baa leeyahay jiray wadani bana waa ahay wadankayga baan u naxaa una kana hadlaa kana fakaraa adduunka meel kale aan ka fakaraa ma lahan inta koonkaas ilaahay barta yartay oo nagu nooleysiyay oo aan ku noolnahay baan ka fakarnaa annagoo dhan dhamaantay Soomaali oo dhan meel ay joogtaba walaalayaal marka waxaan maanta rabaa inaan ka hadlo maasha Allah tabaarakallah go'aanka uu madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu gaareen waa wax loo baahan yahay waana wax Soomaali oo dhan dan u ah waa wax dadweynaha Soomaaliyana dan u ah sababtoo taa waxay dan ugu tahay waxa weeye wixii Soomaali danteeda ah Soomaali ayaa Soomaali oo dhan meel ay joogtaan shacabka Soomaaliyeed ayaa u dana annaga maanta dan nooma ahan wadanka iyagoo burbura danna nooma ahan iyadoo muxuu hayta la isqabqabsado danna nooma ahan in maaragtaa wiilashayada ay seenbari is haystaan oo meel walba la isku haysto wax danaho noogu jirta annaga haddaan shacab nahay male iyagoo baa siyaasad iyo sheeko isku haya ma ahan annaga dantayada ma ahan haddaan shacabkii Soomaaliyeed nahay sababtoo waxaysan dantayada u ahayn waxa weeye waa burburka Soomaaliya waa muxuu hayto daldaloolada Soomaaliya waa dhibaatada albaab walba ku furmahaya sababtoo 10 cadow waa hilib banaan yaalo oo dhowr iyo 10 dhulwaa iyo libaax iyo shabeel iyo haram cad iyo wax walba geesaha ka taagan yihiin weey haddii marka ninkii lahaa dhulka intuu iska dhigo awal kilkishu ku watay hilibkiisa uu watay ninkaas uga baqayeen hadduu dhulka dhigo yiraahdo war inoo qaybiya xataa mid baa ka dafahaya daf ka siinaya ilaa lagana indha dheer lagana muxuu hayto xoolo badan lagana xoog badan maanta waad ogtihiin laakiin intuu kilkisha ku jiro war aynu muxuu hayto war dhigi mahaye aynu qaybsano wadankeena aynu u tashan inta la leeyahay oo mid uu gacanta ku sito ama qaar gacanta ku sitaani waa rooyihiin waxaan leenahay Soomaali haddaan nahay dadweynaha haddaan nahay annaga dantayada maanta waxa weeye waxaan ku dhaganahay haantan gadowgeeda haysanaa sababtoo tabaaba waa soo aragnay iyo dhimasho iyo dhaawac iyo dhibaato iyo qax iyo baraka iyo waadagoydeen inagoo degan oo laba ku lulanayna ba siyaasadaas oo kale wadankii ka dhacday wax maaragta hadal lagu ridi karo ama hadal la isugu imaan karo ayaynu dagaal ku bilowna inagu horta tala iyo tabara kaleba ma lihiin oo inaan dagaalano oo islayno oo baaba'ano oo hoogno baana maahane odayaal baan leenahay geed hoostiis wax ku qaybsanaa baa tiraadaan laakiin waxaas waa waxaan waxba ka jirin waa filin ad soo dhigteen sababtoo geed hoostiis hadii wax lagu qaybsan jiray waxa weey waa la arki lahaa war naga daay dagaalka kuwa yiraahdo dagaal ma rabnay maanta wadanka iyagu dagaal uma baahnay waxaan u baahnay inaanu ninkan doorasho galno oo doorashada haddaan aan rabin aan iska ridno maanta dagaal iyo waxaas iyo xarga iyo ula la isu qaataa waa dhamaatay adduunkana nin qalan ku aarsan waayay baan ku iri qalin ku aarsan waa xanaaq horta hadii baad xanaaqdo waa laga badiya khalaas weey
waa kuuradaas oo kale siyaasaddu waa kuuradaas oo kale kuuradaas haddaad xanaaqdo isdhufdhufatid oo aad tiraahdo war muxuu ninkaanu noo riixriixayaa maanta oo dhan 2 goor 3 goor ku riixay oo muxuu garabka kugu dhufta haddaad xanaaqday adaa gardaran oo laga saaraa kuurada waa sidaan oo arkay siyaasaduna waa la mid waxa weeye ninkii xanaaqa heshiis weel dhashay weeye adaan xanaaqin oo u jeeda in laga gardaran yahay hadana waxa la rabaa inaad dadku wax la qaybsatid baa la rabaa adaan isdhifdhifan oo dhibaato sameyn waxa la rabaa inaad dadku wax la qaybsatid wax walba ka hor imaanaya dadku walaalaha iyo hooyada iyo aabaha maan wax kasta ka hor imaanaya waxa la rabaa marka inaad deganaan iyo hadii ilaahay ku idmahayo iyo dadnimo iyo waxa weeye inaad la soo baxdi karti waa inaad waxa weeye ma sha Allah tabaarakallah waa inaad maskaxdaadu ay ka fogtahay meeshan golaha la fadhiyo golahan maanta la fadhiyo waa inay ka fogtahay waa inaad ka shaysaa kuwan kula hadlayo oo geesahaaga jooga markaadan dawladdaada aadan la shiray dawlad kale aad la shiraysid waa inaad ka shishaysaa iyagu waxay ka sheekeynayaan waa inaad warkoodana uu dhagtaada ku dhacaya oo aad wax ka qaybsanaysaa ayagana aad korkooda ka shaxaysaa laakiin haddii ra'yigeenuba ku kooban yahay inuu reer hebel iska celino ra'yigeenuba hadduu ka dhammaan waayo reer hebel iska celino meelna gaari mayno sababtay tahay maskaxdaanu waxa weeye meel bay ku barmajeysmantaa haddii aad ku barmajeysatid reer hebel baa idinku kacdoon idinku hayo dhib idinku hayo rabo wadanka inay iyagu madax ka noqdaan oo ra'yigaagii ay ku jirto waxa weeye ra'yigaagu ma dheera bas wuxuu ku kooban yahay inaad reer hebel aysan maanta kursiga ku fariisan waa in ra'yigaagu ka fog yahay reer hebel oo dhanka koreeya waa ina wadankayga seebaan lama fiiriyo waxa adiga ka hooseeya waxa la fiiriyo adiga waxa ka koreeya ilaahi subhanahu wa ta'ala uu han weeyaa qofku waa inuu han weeyaa iisaanku waa inuu han weeyaa haddaad hankaagu gaaban yahay maanta maxaad cuntaa iyo maxaa ku noolaataa iyo kursiga reer hebel ama ka qabsadaan iyo hebel muxuu hayto uu maaragtaa wuxuu rabaa inuu adinka idin dhaco adinko reer hebel meesha waxa weeye leeydin adoonsada la rabaayo adinku aad noqotaanin waxaan dabadhilif ninkaan u noqotaan ama naagtaan u noqotaan haddaad gashaan waxa weeye waa khalaas weeye aytinkaagi wallahi buusan horumar lahayn horumar male meeshaasaad ku egtahay intaasaad ku egtahay laakiin markaad ku fakartid maanta waa inaan hadii ilaahay admo mar walba aad wax qabanaysidna ilaahay baa loo tala saartaa mar walba aad wax sameynaysid ilaaha subxaan qaadiraha loo tala saartaa hadii ilaahay idmo maanta waxaan rabnaa haddaanu nahay wadanka Soomaaliya inaanu sameeyno sidaas aan rabnaa waxaan rabnaa dadka iyagoo inaynu u jahoono maanta inaan diyaarad sameysano inaan anagu markab sameysano ina anagu muxuu hayto baabo diyaar bahladan leeyno keenay taangiyadan anagu sameysano sababtay tahay ma sameynin dhagax ma sameynin buurana ma sameynin iisaan adiga kula mido oo nin adiga kula mido oo wiil adiga kula midaha soo sameeyay hankaagu hadda reer hebel qoladii muxuu hayto wiilkii soo tiriyay oo soo alifay ogo waarantiisa hankaagu hadda reer hebel waa inaad ku fakartaa maanta beeraha iyaga waa inaan falanaa waxna loo keeno aadana gacanta noo soo galiyo ama dawlad iyo wana soo siiso waa wax nagu xisaabsan raganimadayada iyo dadnimadayada iyo muxuu hayto wadanimadayada meel uga dhacaysa waa inaanu wax walba anagu wadanka iyaga ku sameysana waa inaan wax walba oo ilaahay sameeyo an ilaahay oo aadana u baahan yahay waa inaan ku sameysana wadanka iyaga waa ka xoolo badannahay waa ka wadan qurxoonahay ka wadan fiicannahay waa ka dadnimo fiicannahay Soomaali dadnimadeedu ma afka bas baayeen iyadu islayso bas miya waa inaynu ku talagalnaa inaynu inagu badeena iyo birigeena iyo wabiyadeena iska butaacayo dadkii leeynaya dadna waxay u sameysanayaan inay maanta dabka dhaliyaan annagana waxay sameysaa dadkeena ilaysaa beero kuma tabacano wax kala kuma sameysano dadkeena ilaysaa biyaheenu waad aragteen ama baday galaan hadii loo sameeyo waro hadii loo sameeyo hadii laga jeexo beeraha loo furo hadii laga ilaa iyo muxuu tahay Hargeysa laga isticmaalo biyaha wabigu maro sababtay ta awal babaday galayeen ilaa intay biyaha ay gaari karaan in loo falo aga la dhowr cagaf intii la qaato loo falo
badaha iyo biyaha badda galhaya laga celiyo biriga loo furo dhulkaas xoolahaasa xataa dhargila haddaan beera iyo bahal kale iina ka falanin sababtay biyuhu markay faafaan oo ay tagaaniin laga jeexo ay meesha uga dhow yahay webigu muxuu hayto meelahaas aan biyaha lahayn oo dhan looga furo waxa weeye dhulkaasa xataa qaboobahayo naqaba soo baxayaayo xooluhu cunahayaan inagu intaa bas baan awoodi weyni intaa bas annaga is haysana annaga isu wada ululub ninka talinaya arki mayse nin dhifar ninka ay dhahaan maanta kanu wax yar oo horumar u samaynaya waxa la leeyahay kanaan raba doorashada inuu nooga shubto dhakab waa la isku dhajinaya afarta labada lugood iyo labada gacanood nin lagu dhagay bilaahi muxuu shaqayn karaa ma shaqayn karo laakiin maanta dadweynaha haddaan nahay annagoo dhan baa madaxa annagoo dhan baa ra'iisul wasaareyaal annagoo dhan baana madaxweyne annagoo dhan baana shacaba annagoo dhan baana kulli wax walba oo laga yahay Soomaaliya annagoo dhan baa sababtay taa dhibtii baan soo kortay oo na bartay wax walba inaan ku hadalno sababtay taa wariga iyo allahay kuma fakarin YouTube aniga oo maqaalada aad soo fariisatay hooyaanahay wiilal barbaaraa dhashay hooyaanahay oo gabdho jaamacada dhigto dakaatiir dhashay ma ana ku talagelin waliga inaan YouTube soo fariisto laakiin waxa igu kalifay waxa weeye dhibtii baan soo kortay annaga guriyaha iyagi noogu soo gashay wallahi guriyaha iyagi bay noogu soo gashay ma ana ka hadalneen hooyooyin waa kuwii gurigooda joogo afkooda iyo adinkoodaba laga ammaan helo laakiin subxaanallahi wiilashayada dagaalka maalin walba isku hayo oo dhibaatada isku hayaana baray inaan soo hadalno inaan YouTube ka dhex taagnaano inaan maalin walba ama caytano ama dadka amaano wax walba iyaga nagu kalifay laakiin ilaaha qaadir raxmaan aan u baryeynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu xaq ku soo duwo adduunkaana wax laga qaadayo kii buura buuxsada iyo kii dhulal buuxsada iyo kii adduunyo jabsadaba wallahi wuxuu ka tagayaa asagoo baan ku iro marada cad hadii loo helo oo xalaal lagu daday baa muxuu hayto ayuu ka tagayaa wadanka adduunkan ka tagayaa wuxuu qiimo adduunku leeyahay lama arko wax uu qiimo leeyahay waligay kuma fakarin wax xaraana cunnimaad cuntid iska daaya xataa meel aad joogtid ha soo galeen waligay kuma fakarin malaayiin adduun haday yihiin sababtay taa adduunku ama qabrigayga ii raacaya ama jannada cadaabta iga celinaya ama muxuu hayto adduun iyo aakhira wuxuu ii taraya mal sababtay taa waa xaraan ilaaha qaadir raxmaan baana sheegay wixii xaraan iyo wixii xalaalaba waxaan leeyahay marka Soomaali Maxamed qof walba asagu naftiisa uu asaga alla siiyaa u turo dhibaato Soomaaliya waa soo dilootay maanta dadku waxay ku talamayaan inay dayax korkiisa inay beera ka dhigtaan bay ku talamayaan anaguna dhulka yarkaayo 7-7 oo yarka baanu isku wada haysanaa nin walba wuxuu u fakaray haba cararahaya nin weyn oo gobol dhan xukumo cararahaya hebel la kulmi maayo dig hebel la kulmi maayo war hebel waa nin adigoo kale oo walaalkaayo la kulana waxa tirada war sidaan kugu diidanahay sidaan iyo sida wadan iyo dad iyo dalba idinka dhaxeeya war sidaan gabar yar ha ka cararin oo hadhiin muxuu hayto wada kulmi mayn aniga isaga colaad gaamurtay baa naga dhaxaysa hadhiin waa walaalkaayo la kulana waxa tirada war shisheeya inta isdilaanin kursiga ku soo wada fariisto oo wada hadlo oo ku kala baxa waxaan leeyahay Soomaali Maxamedey wuxuu dib ku hayaa nimanka sidaas oo dawlad goboleedyada haysta waxay dib ku hayaan shacabka ay xukumaan bay dib ku hayaan oo anigu aan ka koowahay sababtay taa waxa la ninkii baa la yiri ninkii war sugu waaya le waran ma sugo ninkii war hadal la yiraahdo sugu waaya waran ma sugaa la yiri sababta ta meesha xaniya la iskala bixmaya hadal baa la isdhaafsanaya walaalo saan iyo saan kugu diiday saan kugu diiday saan aad ugu diiday hada waxa way war baa imaanay saan aad ugu diiday saan aad jirta way markaasna waxa way dad baad idin dhex fadhiya oo idin maqlaya haddiina ka hadli karinin dee shacabka u soo gudbiya shacabka laftigiisa oraah bay leeyihiin adinka tiina inay ka fiicantaa laga yaabee warsaana la isku hayaa maxaa ka dhigi kartaan shacabow ilaa adunkuna waxa weeye maanta qof
muxuu ahayd aan wax ogeyn ma jiro qof walba waxbaad ogtiina dhib iyo dhibaatana korkiina ku soo dhacday waxa weeye marka adduunkan waxa weeye wada tashi baa looga baxaa wada tashi baa looga baxaa is afgarasha looga baxaa wax isla meel dhig baa looga baxaa laakiin sida gabdho yar ina haba kala cararno hebel baa yimid aan ka cararo iyo aanan is arkine waa dulinimo ilaaha subxaana qaadirna waxaa idinkaga baryaya xaqa ilaahay inuu idin fahamsiiyo ilaaha subxaana waxaan idinkaga baryayaa ilaahay xaqa inuu idin fahamsiiyo wanaagga alle inuu idin fahamsiiyo annagu shacabka Soomaaliyeed haddaan nahay ninna lama soconno wallaahi baana ninna la soconin Soomaaliya aan qof aan isiraado qofkaasaad maanta aad barbarkiisa taageeraysa inaysan jirin laakiin anigu waxaan taageeraa mar walba wadankayga shalay Sheekh Shariif wallaahi baan ku dhaarta maalintuu Sheekh Shariif qabsaday maalintii oo dhan baan ku raameenkii maana seexan halla taageero muxuu ahaa wadaadadii weeye halla taageero kaco dadkii lacagta waa ururiyay baan ku jiray muxuu ahaa to sheekha kale asaguna hadeer ka degay sidoo kale mar walba anagu waxaan raadinaynaa haddaan shacabnahay waddanka iyaga wanaagiisa habba kii qabsado oo yiraahdo waxbaan wanaajinayaan waxaan dhahnaa war raalli baan ka nahay balkan ha wanaajiyo maanta laakiin ayagiiba waxa weeye waa dhargaano waalan dhadhanshaano ka daran ayay noqdeen oo kii waddanka loo dhiibo oo yowm dhowr bari hayaba markaasuu calankiisa saa u lulahaya oo kii kale lugta qabanaya oo uusan ninna dhib maahna aan dheef loo ogolayn dhibaatadu waa kaas markaan hadda waa ogaanay mid walba saan sacabka u garaacayna sacab waa daalnay markaan annagaa sacabkii iska kaayay sacabkii baa na diido meel baan iska fariisan sababta waa aragnaa war mid hadduu maanta intuu qabto kii uu ka dego waa inuu kan kale walaalkiisa u tahniyeeyo garabka la qabtaa oo dhibtii shala meeshu asagu mari waaye uu la marsiiyaa wax meeshu kii mari waaye waa inuu wuu ogaa meeshaan inay ka jirto war halkaana aniga shalay layga qaniinay maanta adiga yaan lagaa qaniinay seebaynu uga baxnaa inuu talada isku biirsano wallaahi baan ku dhaarta raganimo weeye waa dadnimo dadkoo dhanna waa ogaan lahaa waxaa la dhihi lahaa waa sax weeye warwaarintii waa meesha isaga shalay laga qaninay hawsha halkaa ka wada gacan bay kulligood isa siin lahaayeen sababtita nin walba meel baa laga soo qaniinay ilaahay marka Soomaali Maxamed waxaan dileeyahay ilaahay subxaana wa tacaala haydinku duwo waxa wanaagsan Allah haydinku duwo dadkiinana maanta Soomaali haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed haddaan nahay maanta haddaan shalay hurudna maanta waa soo jeednaa qabiilkan dabada laga wadana waxaan leeyahay war wallaahi qabiil unisi janno ku geyneen muxuu ahayd qabiilkaad sheegaysaan cadaab buu idin geynaya janno idima geynayo qabiilku cadaab buu idin geynayaaye janno idin geyn maayo laba qof oo is haysata haddaa aragtid ilaahay dartiis ugu kala goo waa walaalkayo kanaan isku qolannahay iyo kanaan isku diiradnahay tuulannahay iyo kanaan bahalkiinahay iyo dhaqdhaqdaas oo dhan waa wax cadaabta lagu galo ilaahay subxaana wa tacaala marka haynoo dambi dhaaf allah haynoo dambi dhaaf ilaahay haynoo dambi dhaaf asagaa raxmaan oo raxiine walaalahayga qaaliga ah oo aan jeclahay oo Soomaalida ay adinkuna ay cafiyaan way dacafiyayaan kii u malaynayo حبيبه إني مخالد إني قبيل أي محوها تاي ووضه قبيل إني وهذا الشو قبيل أنا جو مهل قبيل لما بليه بهو يسوع ماليات بانا قبيل ودن أنا جو مليه سبحان الله أنا هو يسوع ماليات بانا قبيل هدو خير لي هذين كجنة هيدين قليو هيدين كحيو جنة هيدين قليو لاين ما يجنا يا خير منا إنه يدين قلين هيو محو هيتو قبيل يدين قلين هيو إلهي ينودن بداف إلهي ينودن بداف أنا وحنا ليه ودن كأنه وين الضيقة وين كفلي هي وودن كاس ودن كا الحمد لله ما أنت مركي عذر كانوا دعي وحلا واي بانكو إلى الدنيا ده وحكا دعي وحنا ندنكو حبك أوجي markaan Soomaaliya la hadlo oo dadkii la hadlo yiraahdaan alxamdulillah wa shukri lillah ilaahay idin siyaadiyaan ilaahda wallahi alcadi sababtay tacaanahooda iska cabayaan xoolahooda ay qalanayaan beerahoodii baa u baxaya nicma min allah ilaahay ha u siyaadiyo isaga raxmaan oo raxiine
wadamadan aan joogno ilaaha weyn baan ku dhaartay oo waxaan ku iri xaaladooda ilaahay baa og baan ku iri haddana waxa weeye dhabarka dhexda ku xirteenoo dhabarkay maraday dhexda ku xirteenoo nin walba dhibtiisa waa qarsanhayaa dadweynahooduna markaad aragto tiraahdo waree dhahay 100 shilin haddaad tiraahdaad wax ku soo gadid waxa lagaa goynayaa 20 shilin 80 baad wax ku gadanaysaa oo wixii baan ku iri ilaah baan ku dhaartay aysan waxba goynin shilinkii waxba ma gooyo haddaad aragtid baan ku iri markaasay waxa weeye dadweynaha qof dhifaa wuxuu ku leeyahay ilaahay baa noo maqan haddaad tiraahdo waree dhahay sidaan dhibaatayba inaan ku tahay maxaa tala ah waxay ku leeyihiin hadda waddanka yagii weeye alxamdulilah wa shukri lilah bay ku leeyihiin alxamdulilah ilaahay baa mahadle ilaahay baa noo ilaahay subxaana wa tacaala asagaa khayr noo keenahayo waddanka yagii weeye maxaan samayn karnaa ma waddan noo dhaamaa ogtaha bay ku leeyihiin annaguna markaas masaasuu yeela kan saxar barar buuba nagu bilaabay ilaahay balaha u keenay dagaal bay ka xigaan marka waxaan idin leeyahay walaalayaal khayr baa idinkaga tagahayaa ilaahay idinka hadalka waa idinku dheereeyay khayr baan idinkaga tagahayaa iyo barako insha allah biidmillaah ilaahayna taariikhdeena taariikh fiican allaha ka dhigo ilaahayna xaqahayna fahamsiiyo dhibaatada adduunka ka socota maanta inagu waynu moognahay nicmaynu ku jirnaaye ilaaha subxaana qaadira waxaan ka baryayaa ilaahay inuu dhibaatada adduunka iyo dhibaatada aakhiraba ina ka hayo waddankeennana inoo qaboojiyo inoo dejiyo dadkeenna xaqa fahamsiiyo ilaahay idankiisa waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu